kulan heer sare ah isla markaana la wada sugayay ayaa waxa uu ku soo idlaaday xaafadda Kalija ee magaalada Cape Town. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay arrinta qaxootin ceebka oo si weyn looga hadlayay dhammaan waddanka oo dhan. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan dhinacyada kala duwan ee bulshada sida madax ka socotay hay'adaha qaxootiga, ururada bulshada, ururada shaqaalaha, ganacsatada iyo waliba wasiirka amniga ee dowladda Koonfur Afrika oo isagu ka mid ah wasiiradii dhawaantan loo xilsaaray arrimaha jinsi naceebka. Wasiirka booliska Nethu Mthethwa oo si qoto dheer uga hadlayay arrimaha ku saabsan qaxootin naceebka ayaa waxa uu yiri South Africa weli waxay u dabaaldegaysaa koobka kubadda cagta ee adduunka, waxaana leenahay uma dulqaadan doono in kooxo rabshad wadayaal ah oo aan weli isa soo shaacbixin ay dhibaato u geystaan dadka qaxootiga ku ah waddankan Koonfur Afrika. Dowladda hoose iyo dowladda dhexe waxay go'aan ku gaareen in arrintan wax laga qabto. Waxa kale oo aan sameyn doonaa ayuu yiri ciidamo boolis ah oo meelaha ay ku yaalaan ganacsiyada si gaar ah u ilaalinayo, mana dhici doonto ayuu yiri in hanti dad qaxooti ah leeyihiin lagu boobo gudaha waddankan South Africa. sidoo kale waxaa goobtaasi dhanka Soomaalida uga hadlayay Cabdi Axmed Aadan oo ah afhayeenka ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Kalija, isagoo TV Universal la hadlayay waxa uu yiri kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa macnaha ka hortagid oo laga hortagay dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii maalmahan bilaadu bil meelaas la sheegay in macnaha South Africaanka ay damacsan yihiin inay saaraan dadka shisheeyaha oo waddankooda ku nool. wasiirkii waxyaabihii uu ka hadlay wasiirka macnaha booliska waxa ugu muhiimsanaay in macnaha uu ku adkeeyay aadna ugu celceliyay in maaragtay dawladda ay tilaabo adag ka qaadi doonto cid walba ee cid maaragtay isku dayday inay sharciga jabiso. kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Soomaalida ku dhaqan waddankan South Africa ay ka cabsi qabaan in mar kale ay ka dhacaan rabshado qaxootin ceeb ah oo la mid ah kuwii 2008 ka dhacay waddankan Koonfur Afrika. Cabdikariim Mursal Farax, TV Universal, Cape Town.